So, waa la isdiirinayaa timahaygana iska ilaawa nafaqa marsane. Anyway, I am at the gym, people. So, maanta beelkii dhexda ma xidhin laakiin maalin kasta uma baahnayd. Dhexda durba way yaraatay, so I don't need to wear it every day, but it will help. You're gonna burn extra calories there. And you're gonna sweat it off. So water weight, you're gonna shed some water weight. And maanta jimicsigaygu isku shaandhaysan weeyaan. Xoogay baan already sameeyay. Jimicsiga weli bariyo xamaan qaaqaadin. Marka warm-up-kii baan ku jiro waxaan doonayaa inaan jirkayga yara diiriyo. Energy-gaygu waa low laakiin insha Allah kor buu u kacayaa. So definitely I will exercise more. And maxay kale rabo inaan ka hadlo biyo badanna waan cabay, so that's a good thing. Xarig baan haystaa lagu boodboodo kaasina weli baan isticmaalin laakiin definitely it will be something I will integrate with. I prefer if I'm in a park or somewhere I can do it. So imika waan yara lugaynaya. So definitely 8-minute blast weeyaan. So just when I feel warm up and xubnahay kala furfurmaan markaasaan ordaya 8 daqiiqadood. maanta xoogay yara weight lifting definitely meelahaan idin sheegay ma ka shaqeynaya already exercise iyo jimicsigii kala bixinta aabka iyo xagga dhexda waan yara sameeyay xoogay ayaa la ribir hip thrust wax la yiraahdo oo aad maaragtay miskaha kor u qaadaysid si dhexda ma aragtay you shrink your glute muscles and your lat muscle xagga dambe ku yaala definitely will catch up together, so it will be really good for you. And maxaan kaloo sameynayaa maanta definitely waxaan doonayaa inaan full body workout sameeyo machine-kan I don't know what you call it xaggan u yaala. So let me show you kuwa iga horeeya inta la koro jirkoo dhan waxaan jeclahay mashiinada jirkoo dhan ka shaqaysiiya. Waxaan kaloo jeclahay machine-kan treadmill-ka la yiraahdo kan orodka labadaasaan aad u jeclahay. I'm not a gym rat laakiin se fitness waxaan ka aqaanaa sportiga, so definitely caafimaadkaan u fiican yahay waan inta tegayaa. I'm going to increase the level. Saaxiib bay u badaya.